السلام عليكم soo dhawaada asxaabta ugu xiran Ramadan Kariim asxaabay maanta waxaan rabaa inaan la wadaago insha Allah taala maaragtay sidii aan maaragtay dhiirigelin u siin lahaay gabdhaha kaleeto Ramadaanka marka lagu jiro oo hooyo aad tahay oo waxa ku dhax hawlo badan ku sigeyso waxa u baahan tahay inaad is dhiirigelisid maasha Allah oo istiraahadid macnaha wax ma sameyn kartid macnaha inaad is dhihin oo maaragtay caajisin loo baahan yahay insha Allah soo dhawaada waa ka afurka maaragtay ayaan diyaarinayay markaas waxaan dhahay dhiirigelin maaragtay asxaabta la wadaag maxaa la yiraahdaa Ramadaanka oo kale gabdhaha hawsh way ku dheeraataa oo maaragtay waxyaabaha inta maaragtay afur karis iyo ilmo hays labadii isku darsanto ayay waxaan ku dhahay ku caajisaan markaas ay ku daalaan saaid ay waxay sameeyaan taraawiixda tukan waayeen oo kale marka maasha Allah kaana waxa sameynaysaa insha Allah waxa sameynaysaa waa dadaaleysaa insha Allah gabdhaha Soomaaliyeed waxa way gabdha qiimo badan oo maaragtay aad u howl badan soo dhawaada insha Allah taala iyo gabdhaha maaragtay qaday gabar hadii la qabo iyo hadaa la qabin just waxa waaye qof Soomaaliyeed waaye marka waxaan xasuustaa markii aan maaragtay intaan reer yeelno kale inaan maaragtay hawl saad u badan qaban jirnay hadda marka ilmihii la ku soo kordhay ilmaha haday yar yihiin waxa waaye ayagana heesme kaarwaan laakiin hadii aad maaragtay dhex u xiratid oo isku daydid inaad is adkaysid maaragtay waxa dhan waa isku toosan kartaa insha Allah yaa la isniid jabinin Ramadaanka oo kale waxa waaye aniga waa jeclahay hawsha si kasta u badan tahay waxa waaye waxaan ka helaa dhiirigelin aad u wanaagsan marka waxaan dhihi lahaa soo dhawaada oo maaragtay maxaa la yiraahdaa hawsha Allah ila garab galo intii maaragtay qof caawiye haysanatana ayagana Allah u barakeeyo intaan haysanina insha Allah fadhiga inay ka kacaan hadda aniga waxaan ku dhahay afurka aan sameynayay maasha Allah saasay ta dhinaca kale maaragtay ciyaalkan ka hayay dhinaca kale waxaan ku dhahay maasha Allah maxaa la yiraahdaa waxaan ka karinaay casho ama suxuur marka maxaa la yiraahdaa hawlahaas oo dhan ayaan ku jiray marka insha Allah taala waa ka saaxdar aniga waxaan ku dhahay intii maaragtay aan burka soo fidsaday markii aan burka fidsaday oo sambuuska soo laabtay kadib waxaan sameynay cabitaankii aan shiidanayay because of maxaa la yiraahdaa intuu saliid soo kulaanaysa taa chance waa inta iska istaagilay ama iska fariisan lahayd waxa waa maxaa la yiraahdaa cabitaanka jarjaro dhacdhac si shiidbal waa isku dhamaatay maaho marka maxaa la yiraahdaa saas alaabta u soo sharaxan kartaa oo afurka maxaa la yiraahdaa waliba sagbadeeda aan mid yar ahayd marka maxaa la yiraahdaa mashaarida oo kale iyo waxaas dhan ma saarno sambuuska iyo biyihii la saaran iyo timirtii waa kaasa maasha Allah iyo maxaa la yiraahdaa madaasigii ama burkii marka maxaa la yiraahdaa jikada mar hadaa gashid waxa roon inaad ka soo farfariisanin ama aad u noqonin hal mar la isdaba dhig because hadaa u nasnasatid ama aad maxaa la yiraahdaa sheeko ka gashid oo ka soo baxbaxdid waxay sameynaysaa maanta dhan waxaan ku dhahay hawsha ma dhamaanayso laakiin hal mar teem u sameyso waqti aad galabtii jikada gashid Ramadaanka oo kale bes markaas maxaa la yiraahdaa ka soo bixin ilaa aad meel iska soo saartid waxa dhan hal mar isdaba dhig insha Allah hadii oo maxaa la yiraahdaa qofka caawiyo ku haysta aad haysatidna waa kaasa ani waxa ka hadlayo qofka asiga kaligiis hawsha qabsanayo oo maxaa la yiraahdaa rabo inuu maaragtay asoo oo fresh hadhow inta afuro uusan jikada mar labaad asoo afuray oo daalay oo soo ku noqonin marka insha Allah taala Ramadan Mubarak soo dhawaada asxaabtigu xiraan waxaan leeyahay channelkiina waaye like share comment subscribe aad u mahadsantiin Ramadaanka caafimaad Allah Ilaahay noogu dhameeyo insha Allah waxaan leeyahay Ramadan Kariim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh